meel xiisa ayuu marayaa tartanka xiisaha badan Euro 2024 martigeliyaasha Kenya wadanka Jarmalka iyadoo la diiwaan geliyay kulamo xiiso badan oo wadamo waaweyn ay soo bandhigeen qaab ciyaareedkii aan la filaynin halka qaarkood ay ahaayeen kuwa soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan. warbixinta sheekada ayaan kusoo qaadan doonaa xidigaha liigaha kuwa oon marnaba ka qayb galeen tartanka Euro ama ka soo muuqanin. waxaa jira xidigo badan oo liigaha weligood ka qayb galeen tartanka European Championship-ka. muuqaalka sheekada ayaan saaxiib kusoo qaadan doonaa. Nambar 1 waa Ryan Giggs, haligii hore kooxda Manchester United ka uu kula guuleystay 13 jeer horyaalka Premier League, laakiin weligiis xulkiisa Wales kama qayb galin ama muusan la ciyaareen tartanka Euro. ninka labaad waa Rio Ferdinand, waa haligii kale oo Manchester United ah oo isku qoro taariikhda kubadda cagta Ingiriiska, laakiin weligiis kama qayb galin tartamada Euro. ninka kale waa Mikel Arteta, xidigii hore kooxda Arsenal Everton, haatan hogaamiyaha kooxda Arsenal, wuxuu soo ciyaaray kulamo badan laakiin uma suuragelin inuu ka qayb galo tartanka Euro. daaficii hore Serbia Nemanja Vidic, xulkiisa ayuu kala qayb galay Euroda inkastoo uu ka mid yahay daafacyada ugu fiican taariikhda kubadda cagta, laakiin marna muusan helin fursad badan. nin kale waa Isco. xidigo kale ayaa jiro oo qoraalka sheekadan lagu soo qaatay sida Henrik Mkhitaryan, Alexander Lacazette oo qayb ka ah xulka Faransiiska, laakiin aan fursad u helin inuu ciyaaro tartanka Euro. dhammaan ciyaartooydan waa kuwa ka soo muuqan ciyaarista tartanka xiisaha badan Euro waqtigan si xiisa leh kaga soconaya wadanka Jarmalka, iyadoo ciyaartooy badanna ee nasiib u heleen inay ciyaaraan tartankan natiijo wacan ay ka keeneen, qaarkood ay ku guuleysteen sida Ronaldo ciyaartooy kale. xilligan tartanka si xiisa leh u soconaya, waxaana jira wadamo waaweyn oo soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan halka qaarkoodna yihiin kuwo weli aan soo bandhigin qaab ciyaareedka laga filayay iyo ciyaartooyda wanaagsan ay haystaan markii la eego kooxaha kala duwan ee qaarada Yurub ay ka soo qaateen.